sharaf weyn ayay ii tahay in aan daawadayaasheena sharafta mudan halkan kula wadaago taxane xidhiidh ah oo aan ku qaadaa dhigi doono ama aan ku soo qaadan doono buugga caanka ah ee la magac baxay qisada Rajab Tayyip Erdogan oo ah buug lagu daabacay luqadda Carabiga oo uu soo saaray qoraaga caanka ah ee Dr. Raqib Sarjani kaasi oo si mug leh uga hadlaya sooyaalka taariikheed ee madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan aasaasaha xisbiga cadaaladda iyo horumarinta waddanka Turkiga AK Party cilmi baaristani waxa ay dhageystaha ka caawinaysaa si cadna u tusaysaa ujeedooyinka himilada iyo hayaankii siyaasadeed ee uu hogaamiyahani u soo galay in uu gebi ahaanba dhinaca kale ugu rogo habmaamulkii khariidadii siyaasadeed ee boqolaalka sano soo jirtay laguna soo hagayey waddanka Turkiga oo ah xadaarad islaam oo guun ah sidoo kale cilmi baaristani waxa ay si cad u faahfaahinaysaa mawaaqifta iyo aragtiyaha siyaasadeed ee Rajab Tayyip Erdogan uu ka qaatay kacdoonkii guga carabta ee dalalka carabta ka curtay sanadihii wixii ka dambeeyey 2011 burburkii dawladaha Liibiya, Suuriya, Yemen iyo weliba kacdoonkii dalalka Masar iyo Tunisia. Arrimaha ay cilmi baaristani sida weyn u qaada dhigayso waxa ka mid ah qaabka uu Erdogan ugu guuleystay in uu ku hantiyo qulubta malaayiin qof oo muslimiin ah oo ku kala nool daafaha dunida. Taas beddelkeedana ay jiraan dad siyaasadiisa dhaliilaya balse inta badani ay la dhacsan yihiin kuwaasi oo kala jinsiyada ah kala midab ah balse islaam ah oo la dhaxsan aadna u jecel hanaanka hogaamineed ee Rajab Tayyip Erdogan. Sidoo kale taxanahani waxay naga tusayaa qaabka dunidu ula yaabtay mas'uulkan hamiga badan xambaarsan. Arrimaha kale ee qoraha daraasadani sida wanaagsan u iftiimiyey waxa ka mid ah xaqiiqooyin taariikheed oo soo maray dunida muslimka sida dhicitaankii dawladdii islaamiga ahayd ee Cusmaaniyiinta iyo dhismaha dawladdii qowmiga cilmaaniga ku dhisan ee uu aasaasay Mustafa Kemal Atatürk. Sidoo kale qoraha daraasadani waxa uu eegi doonaa taariikhda ay soo martay xarakada islaamiga ah ee Turkigu waqti dalkaasi uu gacan bir ah ku hayay maamul cabsan nidaamka cilmaaniga ah ee uu ka tagay Kemal Atatürk iyo sida xarakada islaamiga ah ugu soo dhaxana qaaday dhammaan duruufahaasi oo ugu dambeyn keentay inuu ka soo dhex baxo Rajab Tayyip Erdogan oo ah mas'uul u janjeeda aragtiyaha islaamiga waa xarakadii islaamiga ahayd ee uu dhidibada u taagay hogaamiyihii islaamiga ahaa Najmuddin Erbakan. Aqoon-yahano badan oo taariikhda wax ka qora waxay aaminsan yihiin in haddii la yidhaa hal qof ayaa taariikhda dunida wax ka bedelay in ay taasi tahay arrin khalad ah oo laga galay aqoonta cilmiga taariikhda laakiin Ilaahay ayaa awooda in uu abuuro dad noocaas ah oo ka shaqaysiiya awoodda ku kaydsan qof kasta oo basharka ka mid ahina waxa uu leeyahay awood u qarsoon oo haddii uu ka faa'iideeyo uu malaayiin dad ah ku hogaamin karo waxna kaga bedeli karo habnololeedkooda. Rajab Tayyip Erdogan waa shakhsiyad ay ku murmeen badiba dadka dunida ku nool waqtigan gaar ahaan xarakaadka islaamiyiinta ah waxay qolo waliba ula kacday sida ay jeceshahay ama u aragto hab fikirkiisa iyo hogaamintiisa. Qaar badan ayaa ku sheegay in uu yahay hogaamiye diimeed balse hogaamintaasi u wata qaab ilbaxnimo ah oo dunida la jaan qaadaysa. Kuwa kale waxa ay ku sheegeen nin cilmaani ah oo ka fog diinta islaamka. Kuwa kale waxay ku sheegeen in aanu qabin bahaba yaraatay aragti islaami ah. Qaarna waxay yiraahdeen waa nin Turki ah oo dhaqaalaha aad ugu dadaalay in uu wax ka qabto kaasi oo keenay guulo la taaban karo farxadna galiyay shacabkiisa. Qolo walbaaba dhinac hawla dhaqaaqdo. Haddii aan taariikhda Turkiga dib u milicsano islaamka ka hor Turkigu ma uu ahayn dawlad jirta xataa qarniyadii ugu horreeyay ee islaamka. Waxay ka bilaabmaysaa taariikhdiisu markii ay soo hayaameen qabiilada Qaabi ee ku aroorta asal ahaan qowmiyadda Alqas oo asalkoodu yahay Turki. taariikh ahaan waqtigaasi waxay ahayd 667 tirsiga hijriga oo u dhiganta 1288 tirsiga miilaadiga. waa markii uu geeriyooday hogaamiyahoodii waxaana talada uga dambeeyay wiilkiisii oo la oran jiray Uthman. waana halka ay ka soo jeedo magaca loogu wanqalay dawladdii Uthmaaniyiinta ama Ottoman Empire. dawladdaasi oo caan ku ahayd jihaadka iyo isku xidhka dadyoga muslimiinta ah ilaa ay fiday oo ay gaadhsiisay diinta islaamka dawlado badan oo reer galbeed ah. waxaanay dawladdii Cusmaaniyiintu ka hor joogsatay muslimiinta dagaaladii ay soo qaadi jireen Kiristaanku gaar ahaan kuwii reer galbeedka ahaa ilaa ay ka soo hooyeen jihaadkii guulo waaweyn oo ay furteen magaaladii ugu weyneyd ee la oran jiray Qustantiniya oo uu furtay Maxamed al-Faatix. dawladdaasi waxay isku bedeshay dawladdii Cusmaaniyiinta taas oo muslimiinta caalamka u qabatay wax aan la soo koobi karin iyadoo ka hor joogsatay wadamo badan oo carbeed isticmaalkii reer galbeedka
gaar ahaan reer yurub inuu gumaysto wax ku dhow ilaa 3 qarni. dowladdii cusmaaniyiinta ee turkiga ahayd waxay is hortaagtay in loo soo dhowaado dhulka barakaysan ee maka almukarama iyo in la dumiyo kacbada barakaysan ee sharafta badan. waxa kale oo ay aad u ilaaliyeen carabnimada dalalka waqooyiga afrika, halkaas oo weerar ba'ani kaga socday dowladihii ku teedsanaa xeebta badweynta atlantic. reer yurub markiiba waxay arkeen halista ay ku hayaan dowladda cusmaaniyiintu danahoodii. xataa sahankii ciidanku inuu gaadho jasiiradda balkanka ilaa uu dagaal ku dhex maray dowladdii cusmaaniyiinta iyo reer yurub, taas oo ay hor joogsan kari waayeen ilaa muslimiintii ay gaadheen magaalada vienna ee caasimadda waddanka awstriya taariikhdu markay ahayd 1683. dowladda cusmaaniyiinta cadowgooda ugu weyni waxa uu ahaa yuhuud iyo kristaan. markaa wixii ka dambeeyey yuhuuddu waxa ay bilaabeen shirqoollo ay ku fashilinayaan dowladda cusmaaniyiinta khaladaadka ay ku jiraan khilaafada darteed, taas oo burbur ku keentay awooddii dowladdii islaamka taariikhdu markii ay ahayd 1882. ingiriisku waxa uu la wareegay taladii dhulka masar, taas oo keentay in ay dib ugu soo noqoto yuhuuddu dhulka sinai. arrintaasi waxaa aad uga soo hor jeedsaday diidmo adagna kala hor yimid amiirkii khilaafada muslimiinta, laakiin waxa ay ka codsadeen inuu qaato lacag gaadhaysa malaayiin geni si uu ugu oggolaado in yuhuuddu soo gasho dhulka falastiin. waddamadii yurub waxa ay bilaabeen in ay mucaarid badan ku kiciyaan dowladdii khilaafada u ahayd dadka muslimiinta, taasoo keentay in meesha laga saaro dowladdii muslimiinta ahayd. waxaana la aasaasay ururo qowmiyiin ah oo ka doorbiday islaamka aragtida wadannimada. waddanka turkigu waxay samaysteen wargiis loo odhan jiray xorriyo, kana soo bixi jiray caasimadda london ee carriga ingiriiska. waxay ka codsadeen in waddanka loo bedelo waddan dastuuri ah oo leh baarlaman. aakhirkiina waa ay ku guulaysteen, waxaana la soo saaray sannadku markuu ahaa 1876. arrintani waxa ay u cuntami weyday suldaan cabdixamiid oo kala diray baarlamankii iyo ururadii jiray, taasoo ka cadhaysiisay qolooyinka loogu yeedho afka qalaad freemasonis ama maasuuniyadda ee macnaheedu af soomaali ku noqonayo ubadkii xorta ahaa. isla markiiba waxaa ka dhacay turkiga afgembi aan dhiig ku daadan, halkaas oo taladii dalka lagaga tuuray suldaan cabdilxamiid. isla markiiba waxaa la dhisay dowladdii ugu horraysay. waxa ay yuhuuddu ka heleen 4 wasaaradood, 13 wasaaradood oo lagu dhawaaqay marka ay taariikhdu ahayd 1913. waxaana kala ahaayeen wasaaradaha maaliyadda, howlaha guud, wasaaradda beeraha, wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta. sidoo kale yuhuuddu waxay gacan iyo la taliyayaal ka heleen dowladdii laga dhisay dalweynihii turkiga. taladu mar kale waxay gacanta u soo gashay khilaafadii muslimiinta, waxaana madax ka noqday nin la odhan jiray maxamed rashaad, kaasi oo ay walaalahaayeen suldaan cabdixamiid, laakiin wax awood ah oo la sheego ma aanu lahayn markii uu dhacay dagaalkii koowaad ee adduunku intii u dhexaysay sannadihii 1914 ilaa 1918. waddanka turkigu waxa uu dhinaca saaray dowladihii dhexdhexaadka ahaa sida jarmalka iyo austriya, halkaas oo ingiriiskii ka haystay waddamadii carabta ahaa, isaga oo xulafo ka dhigtay quwadihii ruushka iyo faransiiska. arrintani waxaa ka dhashay isku dhac weyn oo xagga isirka ah, iyada oo ay dhacday dowladdii turkigu markii dagaalkii dhammaaday. khilaafadii islaamka ee cuhmaaniyiintu waxa ay u ekaadeen kuwo maxaabiis ah oo daawanaya un waxa dhacaya oo aan awood u lahayn in ay sameeyaan wax saamayn ah. waxaana la qaybsaday waddamadii islaamka iyada oo la fulinayo heshiiskii la odhan jiray saksis ee oggolaanshaha yuhuudda lagu siiyey in ay samaystaan dhul iyaga u gaar ah oo sida ugu dhaqsaha badan hawshaa uga faa'iidaysanaya. aan u gudubno udubdhexaadka taxnaheennan oo aan ku eegayno taariikhda iyo sooyaalka siyaasadeed rajab tayyib erdogan, madaxweynaha wakhtigan ee waddanka turkiga, oo ah hogaamiyaha isbeddelka ku sameeyey waddanka turkiga, innaga oo marka hore dul joogsan doona ninkii beddelay ee u sameeyey jiha cusub waddanka turkiga kadib dowladdii cusmaaniyiinta oo ah ninkii caanka ahaa ee mustafa kamaal ataturk. ninkani waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada waddanka turkiga, waxaana waddanka u fududeeyey in uu qabsado waddanka griiga iyo gumaystihii ingiriiska oo u fududeeyey inuu si fudud ula wareego waddanka turkiga sannadkii 1923. oktoobar 29 ayaa si buuxda waxa gacantiisa uu ula wareegay hoggaankii ciidanka iyo madaxweynihii waddanka turkiga. waxa kale oo uu ku daray markii ay taariikhdu ahayd 1924 bishii maarj 3 in gebi ahaanba la baabi'iyey wixii la odhan jiray khilaafo islaam, lana kala saaray diinta iyo siyaasadda. waxaana uu ninkaasi meesha ka saaray dhammaanba raadadkii dowladdii islaamka ahayd ee turkiga, isaga oo eriyey waddankana ka saaray khaliifkii ugu dambeeyey iyo qoyskiisa oo dhan. waxa kale oo uu baabi'iyey wax kasta oo uu arkayay inuu yahay dhaqan islaam. waxa uu fogeeyey luuqadda carabiga iyo isaga oo qur-aankii kariimka ahaa ee ku qornaa luuqadda carabiga u turjumay af turki, eedaankiina ka dhigay mid ku baxa luuqadda turkiga. waxa kale
oo uu ku dadaalay inta itaalkiisa ah in uu sameeyo wax kasta oo uu u arko in uu yahay wax ka soo jeeda islaam in la baabi'iyo soona minguuriyo wax kasta oo reer Yurub lahaa. waxa uu bilaabay in uu la dagaalamo masaajidadii oo aanu ogolaan in masaajid la dhiso, haddii la dhisana in aanu ka badan 500 oo mitir oo keliya. waxa kale oo uu koobay dadka culimada ah ee diinta faafiya ama dadka wacdiya ilaa uu gaarsiiyey 300 oo qof oo keli ah guud ahaanba waddanka Turkiga. waxa uu xidhay dhammaanba jaamacadihii. waxa kale oo masjidkii ugu weynaa ee la odhan jiray Aya Sofia uu u bedelay meel loo dalxiis tago. masjidkii la odhan jiray Maxamed al-Faatix isagana waxa uu ka dhigay kayd lagu ururiyo raashinka iyo bagaashka. saaxiibayaal, qaybtan oo ahayd qayb hordhaca aan intaasi ku soo afmeero, waxaynu gudageli doonaa taxanahan oo aan rajaynayo inuu macluumaad waafiya ka siiyo isbeddelka gun iyo baarka ah ee ku yimid geedi socodka siyaasadeed ee waddanka Turkiga. inkasta oo mawaadiic dhowr ah YouTube-yada Soomaaliyeed laga diyaariyey, haddana waxaan rajaynayaa in uu kani noqdo mid si hoose u lafagura xogta rasmiga ah ee arrintan la xidhiidha. la socod wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.